ما شاء الله cuntadan saanay noogu soo baxday saana noogu soo dhamaatay alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan channelka iga soo codeynaysan waa Yubna Cadey iga soo codeey insha Allah channelkeedan halkan ayaan soo saarayaa tartan ayaan ku jiraa tartankaas wuxuu ka dhici doonaa channelka Yubna Cadey walaashay Fartuun waxaana la tartamayaa gabar walaasheena ah maasha Allah oo group iskula jirno waxaan rajeynayaa xabaab filaa inay soo codeyn doontiin insha Allah haddana kusoo dhawaada sidaan u kariyo cuntada oo dhameystiran insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalay meel kastoo adduunka joogteen waxaan rajeynayaa inay caafimaad qabtiin insha Allah biidnillaahi alkariim alxamdulilah anoo caafimaad qaba oo isku soo noqonay maanta walaashiin markii waxaadan ugu baran inaad ugu imaanaysaa waa maxay hadde cunto karin yaa digsigana meeshaan ii saaran saliid ayaa iigu jirto cunto karin ma aqaan laakiin tartan ayaan ku jiraa xabaabi fillah waxaan rajeynayaa inay ii soo codeyn doontiin insha Allah biidnillaahi alkariim halkaas waxaa iigu jira basal jubbo qarfo iyo sabiibkiya meeshaas ii yaalo markaas kusoo dardaray mabani tusin baa dartan saas iskugu soo dardaray maasha Allah lagama sheekeyn karo basashaas inay guduud u noqotaa jecel kabsartii hadda kusii darooyaa iyo jubbihi qarfiya ku daray maasha Allah waa isku soo shiilayaa markaas inay saas isku dhex galaan jecelahay dhammaan basashaas markay guduud qurux bariiska dhan wuxuu ku noqonaa hay kala kacnaa kala kicis oo noqonaya ku dhahay maasha Allah ani sida wax loo duumo aqana oo jeedina axbaab fillah sanka ma ka galiyo ma kasaay cuntada dhan qab dara u soo duubo sababtoo ah wax ma duumaan oo marka insha Allah waa isla arkayna sida uu soo bax bariiskan insha Allah haddana waxaan sameynayaa wixii dhan waa isku shiilmeen waa soo biyeynayaa ani biyo kulleyn bariiskan ma shiileen sidan ay ku soo biyey marka insha Allah waan soo biyey bariiskani kadibna isku soo noqonayna waan daboolayaa maxaa la hayay markuu karkarayo isku soo noqonayna uu karkar bariiskii ayaan soo dhaqdo iyo dhaqnaayo meel ii yara soo qaatay sida ayaan bariisku ugu soo darayaa dhammaan baaquli wax ku jiro ku dhameynayaa insha Allah haddana markii bariiska sidana kusoo dhamaaday howshiisan ee kusoo idlaatay waxaan ku xijinayaa kalluunkii ayaan ku xijinayaa digsigiisa ugu soo faaruqo kalluunka waa kana waa kalluun zacfaraan jubbo xawaaj kabsar waa arkina xawaajina waxaan isku darsanayaa kadibna waa isku qasqaseynaa la socod wanaagsan axbaabi fillah yaa walaashiin mulka official wareekeenta maanoy axbaabi fillah waxaan rajeynayaa inay soo codeyn doontiin insha Allah codkii ugu soo shubi doontiin yaa walaashiin qaaliga codka ugu soo shubo codka haddana waa kana maxaa la kalluunkeena sidaan ay ku soo wadaa maxaa la kalluunka marka biyo ku daray manay tusin biyo ayaa ku daraya biyo ayaa xoogaa ku daraya si uu isku dhex galo burka ah ku darin oo uu dhex galo si fiican ay isku soo dhex gelinaya marka isoo dhex geliyo yaa soo noqonayna haddana waa ka kalluunka dhan waa soo dhex galay saas isku soo dhex galay dhamaantiis wuxuu noqday high class maasha Allah lagama sheekeyn karaa ku kalluunkaanayto أحبابي في الله وما سنتي دمانتين سيدو عنا وناكسنا إيه لسعودين سيدو عنا وناكسنا إيه دير جلسين يا مانت سلان دير إيو يا أصحابي جعلكي أني قبي مشغول كان أيغا مشغول يريب مالان إن شاء الله وكنا كلون كسان ساسكسو رح قلي إن شاء الله قدرتان وحان سيسارة يا سحن كاليتا يا كسي ساسارنا يا سحن كسا يا كسي تطوبايا دمانتي سمشا كسو صفايا markaas saas ugu soo safo waxa la saxan daboolkiisa ayaan u dheereynayaa isla arki doonaa birti ayaan soo saaranayaa marka daboolkiisa u dheereeyo lagama sheekeyn karo wallahi kalluunkan insha Allah saliidii ayaa soo saartay sida ujeedin birti waatana way kullanaysaa maasha Allah way kullaatay marka hadda kulaalkii bilaawaysa sidaas kalluunkii sidaas ayuu soo dhex galay maasha Allah ruux oo noqdaa ku dhahay lagama sheekeyn karo hadde asxaabe yaa wax yaro easy guriga ku sameyso oo martiqaad u dhigmo maasha Allah nus kiilo kalluun ah oo kaliya maasha Allah iyo 2 galaas iyo bariisaan karinayaa wixii dhan inaan ila wadaago intaana karnaa sidii gabdhaha wax karinayay ma noqonin sorry sababta aan wax kariyo marka in wax kariyo wax dudubo iska dhaafay garabsaarka xataa dhib qaba bas ma sha Allah hada waa ka saliid way kullaatay sidaas isku soo dhex galiyay ma sha Allah saliid ay saaran yahay
aad ay u karkarayso saliid saa u jeedaan. marka maasha allah lagama sheekeyn karaa ku dhahay kalluunkii sidaas uu kusoo baxay. sidaas ayuu kusoo baxay maasha allah waa gediyey sidaas uu kusoo baxay marka labaad gedinay ma tusin hadda sidaas uu kusoo baxay dhammaantiisa sidaas uu kusoo ilaaday waxyaabo badan oo aan sameeyay oo waxa jirta aanan tusin aanay tusi doonin sababtoo ah mashquulka igu batay mid kale maxaa lahaayeen ana waan sheegay maano garsaarka dhib ku wax duuduub iska dhaafay kada sida baradhada kale marka karinay ma nila soo wadaagin baradhada sidaas ayaan kusoo dhameynayaa oo kusoo dhamey baradhada ma nila wadaagin hadda maxaa lahaayay cuntadii oo diyaarsan oo baa arki doonaa insha Allah isla aragna sidoo kusoo baxay cuntadii waaw ma laga sheekeyn karo walaa bilaahina aad ay qurux badan tahay maasha Allah digirtaas xitaa markaas uu karinayo sida baradhada oo shiilay sida kabsarta oo jaray waxaas dhan dadku way fahansan yihiin maano in yar oo burac sariya iska diyaarsaday inta casarka la gaaray halaas shaaxiisana meesha soo saaray maasha Allah lama sheekeyn karo cunto si qurux badan tahay miiska soo camiray maasha Allah marka waxyaabo yar iska sameysata miiskaad ku camir kartaa kaale arigaas ka dhigi kartaa أحبائي في الله هذا يوم ما سنتين داوشة داوتين مقال كان عاد قروح بدن حرجانا يا هدي إن عاد كهشينا تسيل قرين دونتو سين الشيء قرين دونتو أصحاب تدلو ذاك دونتو إن شاء الله وادي سعد سنكرتان عن تكلت هدي عاد كهشان لما تين هذا يوم ما سنتين وادي كسيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي